وكلها كفوا أيديكم كعمها عليه دقالمين تجيب كعنها قادرة قحا هجرودة صور نقضة هجرودة ريبك ودو القاتة كعنها قادرة دور يطون سنة سالقود وروى المسلمين لقي قردرية بوحسك عليها مربعوا فصحوا وحسك عليها حكمة ماشي كنت بتاوحها ويتبرت لي ملي هدينه انت تبرت لي كهليسان قال هذا إذن عدادين يسقط القاتل وضع دعوة وضع ضد ليا مجتمع بيرة دولة كهانة هوشة وضع مالنت إسقاردي ويقول هلان ويديقان هلان ويقبائل تاقيرته هلان وميلي قاوعو ديديكتان هلان وميلي ريرها ديجستان أي هلان مالن كاس أيا وحا الله فصحي دقالكي ولما مركي ورلقم الله زمينة وحا ليلي عدي يدين سور راسته واتسكع عليك كرتوات فسعنتي مرحلة دي دنبنا وحي أهيد مرحلة أي سيحو ويستين ومركا ليلي دقال عام قادة مركز ومركز دقال كقود الله فصح حكمة دي ربك تبارك وتعالى أيا مركا ميشن كوتشيرتا وانا مسألة العلماء وكهليان وكتبتو كو قريان haddii jihaadku uu awoodi waayo inuu xaqiijiyo wixii loo baahnaa inuu xaqiijiyo waa la bedelayaa maxaa lagu bedelayaa wixii muslimiinta tabartooda la socon karay dacwadii iyo dhismihii iyo tarbiyadii baa dib loogu noqonaya dad baa la soo saaraya macnaheeduna maaha in la nasakhay ama la bedelay xukunkii sharciga ahaa laakiin waxaan waa marxalad haddii waxaan isuroobi waayo od ka caajisay tu kala qaado haddaad salaada istaag ku tukan weydo maxaa lagu ogolaya يا سو فدي كنتو كان بس هذا فدي كان ويدنا شيف كان كنتو كان يسوا war maxaa istaaga uga tagtay يا awoodu ma hays طيب masalaada muhiimsan jihaadka muhiimsan shariicadena markaan inaano dagaalka iyo jihaadka iyo salaada ka horeeyo salaada horeeyo salaada hadaad keli weydo wax badan baa laga tuuray جهاد كان مالكي لكن ويعتبر له ولا توجينه لكن محل سوينا واعدوا لهم ما استطعتم اعداد بلغلي ذلك على ديارنا تعودي توحيد في سنتي خير كما لا بابينا يا امتنا على دسيا خليgeeda hagaano marka ayada awood ay yeelato oo markaasi ay ayadu taladeedii go'aan ka qaaday masaladu marka saas ay ahay markii horena saas ay ahay marka damana xukunkeedu saas ahaa wax iska hor imaanayna ma laakiin ruuxa aan garanaynin xogaa waxa laga yaabaa inuu sidaa والودادو مركي هورنا ساسينه مركن دمنا ساسينه شيخ عمر بين اليوم والامس يا شيخ عمر ما انت يشري يا ما انت يشري وجهلي هي قرا شرعان ولا وضع حاله اسكو ميد ما فتوادي هوري تاي ku saabsanay iyo tan dambe fatwadani waxay ku saabsan tahay baan laba mas'alo kala gedisan haday kala bedelayihiin tan waa inay xukunkeeda qaadato tan waa inay xukunkeeda qaadato adiga laakiin waxaad fahmi weyday inay xaaladu kala bedelantay markaas waxaad mooday hal xaalad laba fatwo kala gedisan in la saaray waa aqoonta ama fahamka halka ku gaarsiin laakiin arintu sidaas ay ahayd waa ku dheeraaday wallahu a'lam سائلكن wuxuu leeyahay muxaadaradii hore ee maanta iyo tii dambe waxaan ka fahmayaa in ay xoog ugu socotay al-shabaab wadankana waxaa jooga dawlad ku meel gaar ah iyo amisom marka sheekhow ma waxaad iga dhaadhicinaysaa in nimankaani ay ka khatarsan yihiin nimankan kale oo iyagu ay diinta ugu khatarsan yihiin macnaha al-shabaab inay diinta kaga khatarsan yihiin dawladda ku meel gaarka ah iyo amisom yaad iga dhaadhicinaysaa iyo BS-ta oo meesha ku qoran saas iga dhaadhicinaysaa شيخ عمر أبو شيخ محمد عيد الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم وليال حتى قضيتنا وإيجا مقدمه قضيتنا وإيجا يعني هرع قضيتنا وجواب السؤال شيخ السوتشيدين وحكسي طلبته شيخنا إن شاء الله تعالى ويقدم بيضونا ومده هرتا أنه جوغنا هلسنكي وجاريدا بدن أي جوغان مسلمة غارهانا الصوماليدا
dhibaatooyin badan iyo mashaakilo badan oo haystana ay jirto. horta waqtigan oo kale waxay ahayd haddii wadcigu dabiici yahay ama ummaddu ay ummad dabiiciya tahay xaaladooda ay xaalad dabiiciya tahay in laga sheekaysto waxayna haysto oo aan wax ka qaban karo. taasa horta sida asalka ay ku wanaagsanaaday noon aan jeclaan lahayn, laakiin mukrahun akhaaka laa baطn waa ku khasbanaanay waana nala khasbayaa. xadiis walba wuxuu leeyahay maqaam iyo makaan uu leeyahay. anigu idinkaan hadda idin weydiiyey ma niman hadda jihaad u socdaatihiin? etoobiya mala dagaalamaysaan, jihaad ma u socotaan hadda? maxaan kuu sheegay axkaam baa iskaga kiin qaldan hadda oo camalkeedu taagan yahay berri laydinka rabo oo berritu idin taagan oo farsamadeedu taagan tahay. halkaan orod baa lagu wada yimi, waa la soo caray meeshii laga yimi xaaladeeda hadda la weydiinayaa iyadoo oo lagaba soo tegay lagaba soo cararay. waxay ahaataba qoray iyo dabkii isla tuur inta la yiri waa laga soo tegay oo lasoo dhex galay meesha, ilmaa lagu dhalay, reer baa lagu dhalay. marka horta taas waa iga arar. way fiicnaan lahayd bani aadamkana waxaa la yidhi waxaa lagu gartaa marka uu wareersan yahay waxaan markaa u taagnayn ama awliye u ahayn ama priority markaa u taagan aan ahayn ayaa lagu mashquuliya ama wax shaqaa ka laasimayn. halkaan markuu ka baxo xoogaa un maskaxda inuu maaragtay kutusiyo mooyaan camal iyo aanay ka laasimayn. horta waa iska ayaandarada ummadda haysata. wax kaloo badan baan filayaa ama culum kaloo dhan oo ka horeysa tan waa culum islaam sax waa fiqi in la barto ay tahay, laakiin shay walba makaan buu leeyahay. salaad walbana waqtigeeda la tukadaa bay Soomaalidu, waana cibaado walbana waqtigeeda leedahay iyo axkaamteeda. taas waa iga arar. way fiicnaan lahayd marka dadku in ay wixii camalaho marka u taagan hormariyaan ka bacdina loo tago wixii kaleeto oo iska tara fikri. laakiin haddii xaaladii baa waxay noqotay in waxaa shubuhaadkan dadkii ku mashquulsan yihiin, iyagoo lunsan, ciyaalkoodii lunsan yihiin, iyagoo diintoodii ay khatar ku jirto, xaalad dhibaato ay ku jiraan. inaan ka sheekayno xaalado kale iyo waxyaala kaloo iyaga aan u taagnayn waan maslaxaad marka ugu jirin. waxaan ka baqayaa xadiiskii nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu nagu rumoobo maa dalla qowmun bacda hudan kaanuu calayhi ilaa uutuu ljadal. dad haddii la baadiyeynayo oo ilaahay subxaana wa tacaala baadinimo ula maago waxaa la siiyaa door baa la siiyaa aan wax nafacay ku jirin. waa laga mashquuliyaa wixii maslaxa u ah. haddaan u soo noqdo su-aashan na weydiiseen waxa weeye waa sax dalkan dhibaatooyin badan ayaa ka jira. ummad burburtay wey, duulaano badan lagu soo qaaday wey oo kala gedisan, mid caskariya, mid maxaan kuu sheegaa fikrad ah, mid maskax ah, mid dhaqaalo ah, mid siyaasad ah. kulligeedna ay ku wajahan tahay ummaddan muslimka ee Soomaaliyeed ee meesha joogta. arrimaha marka sidaa u murugsan oo nawaasilka ah waxay u baahan yihiin fiqhi badan bay u baahan yihiin, fiqhi culus bay u baahan yihiin in la kala guro oo la kala qaado oo la kala saaro. way kala horeeyaan marka way kala horeeyaan oo ummaddii iyadu la badbaadinayay horta iyada in dhiiggeeda la badbaadiyo oo iyada la kala badbaadiyo oo iyada la mideeyo waxba kama horeeyaan. waayo waa ummaddii muslimka ahayd oo la xifdinaya la dhowraya. iyada hadday baaba-ayso oo dhiiggeedii dhammaanayo oo weliba magac diineed lagu banaysto wax ka horeeya taa ma jiraan. waa in diinta in la xifdiyo. diintii haddii ay noqoto wax macnaheedii la bedelo oo diintii ummadda laga qaso oo magac diineed lagu khaldo, waxaa waajib ku ah culimada inay saxaan, ka aqoonta leh inay saxaan oo toosiyaan. culimaduna waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala
waajibka ugu dhibay waa inay arrimaha bayaaniyaan oo isaxaan diintay ilaaliyaan wax kale ma ilaaliyaan ilaalo kale maaha waa ilaaladii diinta marka diintii marka loo yimaado in la bedelo oo la taxriifiyo oo macnaheedii si jahli ah loo fasiro oo lagu talax tago oo lagu xadgudbo culimmadu inay saxaan kana hadlaan